jinku waa makhluuq rabbi oo uumay xilligan lagu jiro insiga aad ay u dhibaan iyaguna siyaabooyin kala duwan u soo weerara muuqaalkan waxaan idinku iftiimin doonaa habnololeedka jinka qaabka ay u tarmaan asal ahaan halka uu ka soo farcamay shaydaanka iyo jinka farqiga u dhaxeeya magacyada ay leeyihiin qaabka ay isu guursadaan iyo halka ay degaan ayaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa hadduu rabbi yiraahdo Папа, я тебя боюсь. Папа, я тебя боюсь. ummadda islaamka waqtigan la joogo ee ku dhaqan Soomaaliya iyo dunida daafaheeda aad ay ula dhiban yihiin weerarka jinka uu ku hayo Soomaaliya farakulul ayuu ku hayaa jinka isagoo siyaabooyin kala duwan xambaarsan yar iyo weyn uma turo maxaatiin jinni baatiin wanaga xagee ka soo raacdeen badda hindiya ka soo raacdeen ma yahuud baatiin mise kristaan yahuud baatiin jinku wuxuu ka mid yahay makhluuqaadka naga qarsoon haddana inaan rumayno jiritaankiisu waa qayb ka mid ah caqiidadeena islaamka waana caalam kale oo sadexiya kan malaa'igta iyo dadka jinku waxaa jira waxyaabo uu insigu u la wadaago sida caqliga iyo garashada kala doorashada waxa xun iyo waxa san waxay ku kala duwan yihiin xagga abuurista oo dhoobo iyo dab ayaa laga kala abuuray insiga iyo jinka labadaasi qodob oo muhiimka ah markaan ka soo tallaabno waxaan horay u sii gudagali doonaa caalamka jinka iyo sida uu u dhaqmo waxaan isku dayi doonaa inaan soo qaadano waxyaalaha sugan ee quraanka iyo culimaduba ay kulmiyeen sax ahaantooda ugu horeyn ereyga jin waa erey carabi ah macnihiisuna yahay wax qarsoon oo aysan dadku arki karin ilmaha marka ay ku jiraan caloosha hooyadooda waxa sidoo kale afka carabiga lagu yiraahdaa janiin jinku waxa laga abuuray dab wuxuu leeyahay maqal cod indho dhaga iyo sidoo kale dhugba jinku xoolaha iyo jamaadaadka oo kale ma ahan wuxuu la mid yahay dadka inta laga raba ayaana laga rabaa xisaabna aakhiro way sugaysaa alla subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri uma abuurin jinka iyo insiga waxaanan ahayn in ay caabudaan وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون haddaba waa kuba qofka alle balanka kula soo galay in umadiisa uu fasahaadin doono oo aan ula jeedo ibliis markiisa hore adoon toosan oo rabbigiisa caabudaya ayuu ahaa samada ayuu la deganaa malaa'igta kadib jannada ayuu galay isagoo barwaaqadaas isaga jira ayuu alla subxaanahu wa ta'aala abuuray nabi aadam calayhi salaam kadibna waxaa la amray shaydaan inuu u sujuudo aadam calayhi salaam wuuna diiday shaydaan sidaas ayuu ku waayay raxmadii rabbi jannadii ayaana laga soo iriyay wuxuu ilaahay u weydiistay in cimri dheer uu siiyo waxaana loo ballan qaaday inuu noolaado inta adduunka uu jiro shaydaanku waa adoonka ugu foolxun inta uu alla abuuray alla subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku shabahay geed ka baxo qaybaha hoose ee naarta allah naga badbaadiyay waxa la sheegaa in uu jinku uu leeyahay darajooyin iyo tilmaamo si la mid ah insiga sida qof wanaagsan mid xun iyo wixii la mid ah dhanka caalamka jinka markii aynu eegno magacyo ay leeyihiin oo ay isu yaqaanaan midka wanaagsan ee akhyaarka ah waxay u yaqaanaan jinni macnuhuna waa qof jinninimada ka run sheegay oo daacad ah ninkani bini'aadanimada ayuu wax ka yaqaanaa kuwa insiga la degay waxay u yaqaanaan caamir kuwa caruurta dhibana waxay u yaqaanaan arwaax kuwa dhibka badanna waxay u yaqaanaan shaydaan marka uu faraha uu ka baxo oo loo maaro waayana maarid ayaa looga yaqaanaa adduunweynaha jinka iyo shaydaanka cirfiid waa kan ugu awoodda iyo maamuuska badan dhanka caalamka jinka markii loo eego awoodiis ayayna ku qadariyaan jinku wuu isguursadaa wuuna tarmaa haddii aynu ka jawaabno jinku ma dhintaa jawaabtuse waxay noqonaysaa haa jinku wuu dhimanayaa laakiin insiga wuu ka cimri dheer yahay waxaana ugu cimri dheer shaydaan oo ilaahay ka codsaday inuu noolaado ilaa qiyaamaha haddii aynu idin iftiimino halka uu dego jinku wuxuu hadba degaa halka uu ku dhaqan yahay kuwa muslimiinta ahi waxay la degaan muslimiinta insiga ahi kuwa gaalada ahina waxa ay wareegaan goobaha kale ah suuqyada musqulaha mugdiga iyo qabuuraha adinka ayayna ka cararaan bisha barakeysan ee ramadaan waa la xiraa gurigii lagu akhriyo suuratul baqarana way ka cararaan cuntada bisinka lagu bilaabana way ka cararaan jinku wuxuu leeyahay awood uusan insigu lahayn sida degdega tusaale sida kii kursigii bilqiisir waxaan ku keenayaa si dhaqso ah inta badan jinku waa gaalo qayb muslimiin ahna way jiraan qof waliba oo insi ah wax la nool mid jin ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kan aniga ila nool wuxuu ilaahay ka dhigay muslim wax khayr aanan ahayn iima sheego jinku waxba kama oga cilmu qaybka quraanka ayaana cadeeyay sida ku cad qisadii geeridii nabi suleymaan calayhi salaam ma banaano in la kaalmaysto jinniga xitaa muslimiintooda loomana kaalmaysan karo daaweynta qof jiran iyo raadinta qof maqan iyo wixii la mid ah haddaba wayna inta muuqaalkii aan uga hadlaynay macluumaadkii ku saabsanaa jinka